Assalaamu calaykum mudanayaal iyo murwooyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada Machadka Darwiish Academy. Waxaan ku dhex jirnaa qulqulkii taxanaha ahaa ee casharada sare. Qaybtanna waa qayb muhiim ah oo qofku marka uu suuqa forex ku jiro weliba qaybta sare uu joogo in uu fahmo awoodda ay qaybtani leedahay ay muhiim tahay. Sababtoo ah mar walba oo aad wax falanqaynaysid in aad samaysid backtest wax la dhaho waa muhiim. Okay, waxaan ka hadlaynaa marka backtestiga waxyaabaha qofka laga doonayo ama shuruudaha laga doonayo inuu raacayo inuu fahmo waxa uu yahay backtest. Waxa kaloo intaas sii dheer in uu qofku adeegsan karo backtest mar walba uu samaynayo qofku falanqayn. Waxaan dhihi karnaa qofka oo barta backtestiga sida uu loo sameeyo inuu qofkaasi aan dhihi karno sirtii suuqan oo dhan gacanta ku haya mana ku khasaarayo inuu ku guuleysto maahane. Waa maxay marka backtest? Qeexidiisa haddaan aan u nimaano backtest waa dib u daalacasho aad dib u taxliilinaysid suuqu wuxuu horay u soo sameeyey. Yacni suuqa kan marxalado kala duwan buu soo maray. Waa inaad og tahay marka suuqa kani ilaa imisa sano buu marxaladan uu hadda ku jiro ku socday. Suuqu 2 sano ka hor marxaladuu ku jiray ama sanad ka hor ama dhowr bilood ka hor ama asbuuc ka hor marxaladuu suuqu ku jiray mar walba oo backtest samaynaysidna mar walba sheekadu waxay gaaraysaa sanado ka hor wuxuu suuqu hore u sameeyay inaad ogaatid. Sababtoo ah suuqa kani wuxuu hore u sameeyay mar labaad sameeyaa. Sida kaliya ku ogaan kartidna waa inaad samaysid wax la dhaho backtest. Sababtoo ah waa muhiim. Okay, backtestiga waxaan idhahnaa waa dib u daalacasho aad dib u taxliilinaysid suuqu wuxuu hore u sameeyay si aad u ogaatid marxaladda dhabta suuqu hadda samaynayo iyo wuxuu samayn doono. Sababtoo ah mar walba backtesting samaysid ama dib u daalacashada tan ama dib u taxliilinta tan waxaad helaysaa suuqu calaamadu hadda samaynayo inuu hore u sameeyay kadibna ay ku noqonayso confirmation kalsooni ay ku galayso. Sababtoo ah structure-ka suuqu isma khilaafo. Wuxuu suuqu hore u sameeyay haddaa ogaatid isla haddana samaynayo guul fiican baad ka gaaraysaa waadna helaysaa intrigii sidaa ku heli lahayd. Okay, haddaa qodobka labaad u nimaano backtestigu waxa uu ku siinayaa siro badan oo kaa qarsoonaa. Maxaan ka wadaa siro badan oo kaa qarsoonaa? Mar walba oo backtest samaysid waxaad arkaysaa waxyaabo cajiiba. Waxaad arkaysaa suuqu marxalad uu hadda ku jiro inuu suuqu ku soo jiray sanad ka hor 2 sano ka hor dhowr bilood ka hor. Waxa kaliya ku siinayna waxa weeye inaad samaysid wax la dhaho backtest oo ah dib u daalacasho. Backtestigu waxa uu ku siinayaa siro badan oo kaa qarsoonaa. Sirahaas kalena waxaa ka mid ah uu ku siinayo inaad heshid confirmation inaad ku dhiiran kartid trade-ka kani inaad meesha u falanqaysay uu aadayo awoodiisa. Sababta waxaa soo ogaatay suuqu wuxuu hore u soo sameeyay. Mar walba oo aad tagtadii og tahayna taagantana waad cabiri kartaa timaadadana waa odorosi kartaa oo waad ogaan kartaa. Waana muhiimadda uu leeyahay backtestigu. Okay, 3 haddaa u nimaano suuqu waxa uu sameeyaa wuxuu hore u sameeyay. Ogow taas. Suuqu waxa uu sameeyaa wuxuu hore u sameeyay. Mar walba waa inaad niyadda ku haysaa in uu suuqu sameeyo wuxuu hore u sameeyay. Mar walba suuqu waxa uu sameynaya wuxuu hore u sameeyay balse meelihii uu hore uga sameeyay kama sameynaya meelihii hore meel ka duwan buu ka sameynaya calaamadaha suuqa iyo market structure-ka. Sababtoo ah suuqa kani waxa uu sameeyo wax la dhaho nature oo aan qaybta koowaad iyo kaga soo hadalnay wuxuu suuqa hore u sameeyo mar labaad sameynaya balse wuxuu ka sameynayaa meel ka duwan. Tusaale cimiladu marka ay isbedbedelayso يعني مر والبا حركة إنه سؤال عمنا حاجة داير جيلان يعني حلية ذا سكال الدوان ميد والبا عمل جونية وضعتها
laakiin sanad walba way soo laabtaan isla sidii bay dhacaan balse sanadkii hore lama joogo haddii 2000 ay dhacay 18 hadda waxa la joogaa 2019 marka mar walba suuqu waxa uu samaynayaa wuxuu horey u sameeyay balse waxa uu ka samaynayaa meelo ka duwan waana muhiim inaad og tahay taas marka waxa ku siinaya sirtaas oo dhan waxa la dhaho backtest markaad baratid okay haddaan u nimaano qaybta afraad mar walba oo aad samaynaysid backtest ka bilow taxliilintaada time frame-yada sare tusaale hal bil hal asbuuc ama hal toddobaad saa u taqaanin hal maalin waa muhiim saddexaa lagama maarmaan wey meesha ugu dhow ka bilaabis ha noqoto hal maalin sababtoo ah waxaad helaysaa awoodda trade-ka kani meesha u socdo iyo marxaladda dhabta uu ku sugan yahay iyo si meesha uu ku dambayn doono balse haddaad meel dhow ka bilowdid waad wareeraysaa mar walba oo backtest samaynaysidna isku da inaad time frame fog wax ka bilowdid mudane iyo murwo waxaan ku ogeysiinayaa backtest oo adeegsatid iyo suuq oo dib u taxliilisid inay tahay feerjignaasho inay tahay taxadar inay tahay sir badan in aqoontaadina kobcayso waxaadan horey u arkayn markaad time frame-yada yaryar joogtay aad arkaysid aqoontaaduna ay kobcayso waxaan doonayaa qof walba oo macadkan ku jira in uu helo wuxuu horay u maqlin inuu maqlo wuxuusan horay u baranna uu barto wax cusub markuu muuqaalada daawanayo taxanaa waxaan kuda gelaynaa marka inta tan aan idiin qeexay aan idiin sharaxay oo ficila baan idin geynayaa okay waxaan joognaa hadda hal maalin baa joognaa waxaan tegaynaa hal asbuuc baa ka tegaynaa waxaan tegaynaa hal bil baan tegaynaa saana dhahaynaa marka mudanayaal iyo murwooyin annaga oo daalacanayna kana duulayna suuqu wuxuu hore u sameeyey okay halka haddaad fiirisid wax cajiibaad arkaysaa waxaan joognaa hal bil baan joognaa halkaa bil aan joogno waxaad arkaysaa waxyaabo cajiiba maxaan ka wadaa marka suuqu wuxuu hore u sameeyo mar walba sameeya markaa ku leeyahay halka soo jar ilaa iyo halkaas dhig waxaad arkaysaa suuqa kani wax cajiiba inuu sameeyey wuxuu halka ka sameeyey wuxuu halka ka sameeyey iyo wuxuu halka ka sameeyey inay yihiin isku mid balse si kala duwan ay meelo kala duwan ka kala dhaceen waa muhiim marka inuu qofku barto qaababka uu market structure-ku samaynayo iyo sida qofku uu ula tacaali lahaa una baran lahaa market structure-ka markaad fiirisid tan waxaa arkaysaa ha fiirin ballac balse waxaad arkaysaa in ay yihiin isku mid meelaha ay ka kala dhaceen iyo qaabka ay isku la-eg yihiin waxaa ujeedaa inay yihiin isla eg aan kala dheerayn balse meelo kala duwan ka kala dhacay waana muhiimadda qofku marka uu barto market structure-ka yani waa wax cajiib ah fiiriya wax cajiib haddaan tan kale soo jarnana waxaad arkaysaa sida ay isku la-eg yihiin isla egtan aan kala dheerayn mudanayaal iyo murwooyin markaad fiirisid lacagta tani waxa ay samaynayso waa wax cajiib ah balse qofku markuu aad ugu fiirsado wuxuu dareemayaa siraha badan ee ku duugan lacagtani waxa ay samaynayso markaad fiirisid markaa falanqaynteena aan tagno hal bil ka tagno oon hal toddobaad tagno wax cajiibaa sii arkaysaa oo hufan oo diiran haddaan soo qaadano marka trailinkeeni saarno waxa ay lacagtani halaka ka samaysaa haddaad fiirisid tan kalena waxay halag ka samaysay aad fiirisid waxaa arkaysaa wax cajiiba inay ka sameeyeen lacagaha kani halakan hadaan kalarka bedelno si aad si faseexa ugu aragtid waxaad arkaysaa wax cajiiba inay lacagahani sameeyeen lacagtani samaysay kadib adoo isku xiraya ulaha kan waxay lacagtani samaysay halakan okay wax cajiibay samaysay lacagtani halakanay kasoo dhaadhacday okay halakanay kasoo samaysay dhaqaaq bay soo samaysay markii hore wax la dhaho impulsive bay soo samaysay lacagtani haddaad fiirisid mudane iyo murwo waxay soo samaysay wax la dhaho dhaqaaq bay lacagtani soo samaysay
dhaqaaqan ay soo samaysay dhaqaaqan ay lacagtani soo samaysay waxaa arkaysaa kadib maxay gashay waxay gashay wax la dhaho correction ama jahawareer dheer markaad fiirisid marka jahawareerkan dheer ay samaysay lacagtani wax cajiibaad ka arkaysaa maxaa keenay lacagtan inay soo dhacdo waa ka hadli doonaa wax cajiibaa keenay in ay lacagtani soo dhacdo markaad fiirisid ujeedaa wax cajiiba bay samaysay kadib way jabsatay way tagtay halakan confirmationka kale aad ka helaysid waxa weeye in lacagtani meeshata markii lagu celcelinaya qaybtan dhexe ay samaysmatay haddaad fiirisid aan samaynay qaybtan dhexe ay samaysmatay lacagtu inay halaka ka kala wareegtay ay dhaqaaqday dhaqaaqa kan ay lacagtani samaysay marka ay halkaa ka dhaqaaqday kadib waxay samaysay wax la dhaho bullish flag bay waxay ku samaysay correctionkii dhexdiisii maadaama uu large correction ahaa kadib cabirka kan markaad fiirisid cabirkiisa kale soo qaad inay bartaa tagtay baa arkaysaa lacagtii ujeeda inay halkaas tagtay markaad fiirisid inay bartaas tagtaa arkaysaa okay inay halakan si qurux badan oo hufan ay u tagtay halkaas inay tagtay kadib maxaa dhacay inay lacagtii soo laabatay oo ay sal soo aaday salka kan ay soo aadayna wuxuu la egyahay impulsive-ka kan okay impulsive-kan buu la egyahay dhaqaaqan ay soo samaysay lacagtii ujeedaan saaxiibayaal marka mar walba waa muhiim inaad cabiratid dhaqaaqa uu suuqu samaynayo iyo meelaha uu ka samaynayo inay kuwa cabiran yihiin exactly dhaqaaqii oo kale bay soo samaysay ay soo dhacday impulsive-kii kadib maxay gashay impulsive maadaama ay samaysay correction kalay gashay okay dhaqaaq correction mar walba oo suuqu uu galo impulsive uu sameeyo waxa uu sameeyo wax la dhaho correction marka correctionkan dhexdiisa baa waxa ka maadaama hadda joogno hal toddobaad hal asbuuc baan joognaa waa correction dheer dhexdiisa oo lagu trade garayn karaa balse qofkii khabiira ba ku dhex trade garayn kara istaraatiijiyadan darwish strategy marka adeegsatidna oo ku trade garayn kartaa qaabkan oo ku tusi doonaa inkastoo aan dadka kala taliyo inaysan ardaydu ilaa ay khabiir ka noqonayaan aysan correction dhexdiisa ku trade garayn hadday time frameda dhow ka qaraabanayaan ha balse marka uu suuqu correction ku jiro inuu qofku sugo sababtoo ah intaas oo dhan correctionka arkaysid intaasaa kaaga fiican quruxda badan oo suuqu kuu soo dhacayo adoo si cilmiyeysan 2,000 oo pi meelaha 1,900 marka mar walba muhiimadu backtestigu leeyahay saana ku ogaatay maxaa keenay marka inuu lacagta tani halaka ka laabato mudane iyo murwa waxa keenay wax kale maaha waxa keenay waxa weeye halakan suuqu horey buu uga laabtay saaxiibayaal kan suuqu horey buu uga laabtay oo wuxuu aaday jihada buy jeedaan soma wuu tegay jihadii buy buu aaday halakana suuqi lagu celcelinaya marka maxaa samaysmay marka aad fiirisid waxyaabo cajiiba baa halaka ka samaysmay halkaa ka bilow misna ushaadi qabadsii kan okay halkaas qabadsii adiga oo misna trend line-kaaga sii sawiranaya si qurux badan markaad fiirisid marka halkan markaad ka bilowdid trend line-kaaga wax cajiibaad arkaysaa in ay lacagtani samaysay okay dad fiirisid marka maxaa keenay marka okay tan waa u imaanayna maxaa keenay lacagta tan haddii aan hadda jarno inta tan maxaa keenay lacagtan inay halaka jabsato mudane iyo muruw bartatan sabab baa keentay oo waa maxay sababta keentay sababtoo ah lacagtani halakan waxay ka gashay wax la dhaho correction bay ka samaysay mudane iyo muruw waxay ka samaysay wax la dhaho correction bay ka samaysay waxay ka samaysay wax la dhaho correction mar walba correctionkaa samaysay maxaa ka horreeyey impulsive baa ka horreeyey qaybtii sare ku jirnaa istaraatiijiyadii baa ayraayar u geli doona marka mar walba oo suuqu sidan oo kale trailing yahay oo halka uu ka samaysmo sirta si fiican u dhageysta oo halka ka samaysmo wax la dhaho correction uu suuqi ka galo intuu impulsive soo sameeyo lacagtan ogow inay jabsanayso il dhaqaaqaysana impulsive-kii hore
inta uu sameeyey. Halka marka waxa la dhaho waa ku baran doonaa risk entry-gi iyo reduce risk entry-gi. Kadibna halkan waa maxay sababta u gaarayso? Waxaa soo qaadanaysaa cabirkaaga suuqan oo dhan inuu cilmi ku socdo baad ogaanaysaa inay ilaa halkaas soo gaarayso kadibna kala weecanayso. Haddaad fiirisid marka aan fasaxno waxaad arkaysaa fiiri exactly inuu suuqii halkaa yimaaday kadibna kala wareegay. Okay, marka mudan iyo murwo waxaad arkaysaa inay waxaan yihiin cilmi ku dhisan yihiin suuqa kan, aqoon ku dhisan tahay, aysan ahayn nasiib iyo ilaahay ugu aadi. Waxaad u jeedaa marka intaa sheegaynay confirmationka markaa heshay ee soo dhaqaaqay suuqii intaa sameeyey bartii cabirkaaga ku ahaa oo ku dhaqaaqay keliya intaasoo cilmi ah ku dabaqday imisa 600 oo biib baa qaban lahayd wax gaaray. Okay, aan sii wadno markaa lacagtii saasay samaysay marxaladeenina hadda ku jirtaa. Okay, maxaa marka lagaa doonayaa? Waa maxay waxa lagaa doonayo? maxaase kan in halka ka laabato confirmation kale aad samaynaysa mar walba update bata train line-kaaga soo durkiso halkan dhigo marka train line-kaaga bartaadi train line-kii hadaad fiirisid dii kale halkan aad dhigaysaa. Balse marka aad fiirisid train line-ka kani waxa uu kuu sameynaya mar walba waa isku xirkii. Maxaa isku xiraysaa? Halkaa markuu joogay kadibna hadaad fiirisid xataa halkaa dhigatid inuu soo jabsaday halkaa soo gaaray. Balse adiga haddaad bartiisi ku celisid ya kan aad bartiisa ku celisid kan bartiisa ku celisid train line-kan waxa arkaysaa wax cajiib inuu suuqu sameeyay. Oo waa maxay wax cajiibka uu sameeyay? Meesha hore aan dhiganay inuu ka sameeyo wax la dhaho lacagtani ay ka samaysay wax la dhaho double bottom ay ka samaysay. Waxa ku baran doontaan waxa ku soo barateen qaybtii dhexe ba ku soo barateen double bottom iyo double top iyo waxa uu yahay uu suuqu laba mar uu soo taabtay halkan 1 halkanna uu soo taabtay 2 uu soo taabtay. waa maxay marka lacagta tani sababta halkan u samaysay oo sababta halkan uga kala wareegtay ay bay u aaday? Waxaan ku tusayaa marka wax cajiib ah ay lacagtani samaysay inta si aad confirmation ku heli kartid lacagta tani. Horta lacagta tan guud ahaanteedba marka aad fiirisid markii hore waxay ku sugnayd u tagi doonaa iyo marxaladda ku sugnayd iyo sida ay ku soo dhaadhacday halka ku timaaday. Sida kale oo u arki kartid waxa weeye lacagta tan ay samaysay hadda halka ka duushid wax cajiib ah inay samaysay. mar walba uu suuqu sameynayo impulsive soo sameeyo sida kan oo kale correction buu kale soma haddaad fiirisid halka waxaa arkaysaa lacagtan inay gashay wax la dhaho correction inay gashay. lacagtan correction kan dhamaysanayso kadibna aad ka sugaysid inay hoos u soo dhaadhacdo oo ilaa xagee soo dhaadhacaysaa markaad train line-kaaga soo durkisid oo halka dhigatid ilaa inta ay soo dhacayso market structure-ka halkan aad ka soo jirtid ilaa inta soo jiratid halkan dhigtid waxaad arkaysaa ilaa inta soo dhacayso. oo maxay halka u imaanaysaa? sababta u imaanayso halkan dhigo waxaad arkaysaa bartata inay timaaday ee halka soo gaaraysa lacagta tan. mar walba haddaa cirifka saartid kan kalena cirifka saa u qabadsiisid inay halkan imaanaysa lacagtani ay barta soo aadayso soo gaarayso. haddaad sugaysid intay samaynayso reduce risk entry-ga qaadanaysidna uu targetkaaga halkaa kuu noqonayo oo wax la dhaho market structure-ka. marka halkan waxa ku fiirinay hadda intaasoo qaybood baan aragnay. Okay, sida kale lacagtani samayn karto waa maxay? maadaama double bottom-kan halkan ay ka samaysay wax la dhaho okay markaad fiirisid structure-ka suuqa in lacagta tan ay kor aado ilaa xagee bay aadaysaa marka lacagta tani ilaa xagee bay gaaraysaa. waxaa soo qaadanaysaa ushaadi baa soo qaadanaysaa haddaad fiirisid. okay, ushaadi markaa soo qaadatid aad saa u qabadsiisid xariiqintaadii aad qabadsiisid waxaa arkaysaa waxa ay lacagtani samaynaysa marka halkan ujeedaa bartatan inay soo taabato. okay, barta inay soo taabato kadibna halka intay soo taabato cabirkan haddaa qaadid oo bartaa dhigtid inay halkaa kuu soo taabato kadibna ay lacagtani soo dhacdo ilaa halka timaado. oo haddii ay structure-ka suuqa halka soo jirtid haddii aad structure-ka suuqa halkaa kasoo jirtid mudana iyo mur haddaa halkaa kasoo jirtid ilaa halkaa ay keentid ilaa inta uu imaanayo oo backtesting iyo qaabka loo sameeyo oo suuqu muxuu sameeyey
wax cajiib u sameeyey muxuu sameeyey wuxuu hore u sameeyey waa halka sameeyey jida tase meelo kala duwan ka dhacay oo muxuu halka u yimaaday sababta u yimaaday waxa weeye hadaa soo qaadid oo halka dhigtid inay yihiin wax cajiib ah oo ku dhisan cilmi iyo khibrad okay hadaa marka sii tagno qaybta tan qaababka badan oo backtestiga ku sameyn kartid qaababka kala duwan suuqana sameynay mar walba oo cilmigaagu batana intaas oo dhinaca ka sameynaysa one day baan tageynaa mudane iyo marwo markaad fiirisid marka halkan waxa ay lacagtani sameysay wax cajiib ah tan waxa la eg tahay tan markaad fiirisid qaabka ay u la eg tahay qaabka u sameysana waxa arkaysaa wax cajiib ah in uu suuqu sameynayo okay halka markaad fiirisid lacagtani markay marxaladan ku jirtay maxay sameysay markii ay marxaladan ku jirtay maxay sameysay waase maxay waxa laga doonayay inay sameyso lacagtani halka hadaad fiirisid oo bartan dul istaagtid lacagtani inay sameysay wax cajiib ah baad arkaysaa mudane iyo marwo waa maxay marka waxa cajiibka ay lacagtani sameysay aan cabirano birkeeni aan halkan dhigno okay bartaas dhigno aan jarno marka market structure-ka oo aan ka jarno halkan wuxuu suuqu ka sameeyay marka halkan waxa uu suuqu ka sameeyay aan jarno inta wuxuu suuqu ka sameeyay halkaas aan jarno marka fiirisid mudane iyo marwo halkan waxaad arkaysaa wax cajiib inay lacagtani sameysay halkan in laga soo celiyay yes bartan kale in laga soo celiyay markuu marxaladda suuqu ku jiray halkan okay halkan misna in laga celiyay markuu marxaladdan ku jiray suuqu tan iska tirtirno wax cajiib ah baa arkaysaa suuqa kan iyo qaabka uu ku socdo iyo sida hufan oo cilmiga ugu dhisan yahay marka fiirisi marka halkan waxa focuskeena saaraynaa bartatan marka halkan ya wax cajiib ah halkaas ka bilow trend line-kaaga halkaa qabadsii marka cajiib halkaas trend line-kaaga qabadsii si hufan kadib markaad fiirisid tan muuse soo gaarin trend line-ka kan balse trend line-ka kala qabadsiinaysaa halkaas ka bilaabaysaa wax cajiib ah in uu sameeyay baad arkaysaa suuqa kan ama trend line-ka kani halka muxuu ka sameeyay marka waa lakabyada istul saaran halka suuqu wuxuu ka sameeyay dhaqaaq jeedaso kadib meeshan lagu celiyo soo laabtay suuqi halkan ku soo laabtay kadib muxuu sameeyay dhaqaaq kale correction buu galay uu dhaqaaqay marka okay halkan marka dul istaagana marka inta tan dul istaagana barta suuqa lagu celinay halka suuqu wuxuu soo taabtay mar kale okay halkan soo taabtay kadib mar kale buu misna soo taabtay ka soo taabtay okay kadib muxuu sameeyay markaad fiirisid falanqeyntaada aad si cajiib u fiirsatid korna wuxuu ka soo taabtay suuqu inta maruu ka soo taabtay baan qeexaynaa 2 1 soo taabtay halkan wuxuu soo taabtay mar kale okay maxaa marka trade-ka ka sugaynaa mar walba cirifku waa muhiim waa sababtan ku leeyahay cirifka saar kandalkaaga mar walba trend line-kaaga cirifka waa inaad ku hubsataa inuu ku saaran yahay mar walba waa laga maarmaan marka hadda fiirisid marka falanqeynta tan si qurux badan u fiirsatid waxa arkaysaa waxa uu halkan trade ka sameeyay marka waxa uu sameeyay lacagtan waxay sameysay markii hore dhaqaaq bay sameysay maadaama ay halkan dhaqaaq ka sameysay lacagtani bartan ay dhaqaaq ka sameysay halkan dhaqaaq bay sameysay bartan ay dhaqaaq ka sameysay da u jeedaan dhaqaaq bay sameysay lacagtani bartan ay ka sameysay dhaqaaq sida u jeedaan mudane yaray murway kadib maxay sameysay trend line-ka ku soo laabatay correction bay sameysay waxay sameysay waxa la dhaho bullish flag bay sameysay maadaama ay bullish flag sameysay waa maxay marka taarka halka markay timaaday lacagtani ilaa intaas waxa weeye muddadan dhan lacagtan waa la socday inta marxaladaheeda dhan iyo behavior-ka dabeecadaha ay sameynayso dhan marka fiirisi marka
lacagta tani halaka markay ka dhaqaaqday maxaa ogta ilaa xageeba targetka ka doonaysaa waxaa soo qaadanaysaa tan waxaa dhiganaysaa bartaasaa dhigaysaa waxaa leedahay halaka suuquu soo taabtay sooma bartaas halka uu soo taabtay suuq sooma halkaasaa ka doonayaa targetkayga baa leedahay inay bartaas soo gaarto ay timaado maxaa qaadaysaa marka waxaa qaadaysaa cabirka kan halkaasaa dhigaysaa waxaa arkaysaa suuqii si hufnaan leh inuu kugu soo taabto haddaa buuxisid cabirkaa wuu kaa kala dhiman yahay si fiican falaagaagi inuu halka ay soo taabtaa leedahay ya si qurux badan inuu halka ii soo taabto maxaa marka kuu sawiran waa bullish flag uu jabsaday maasha allah okay halkaas inuu kuu soo taabto markaa fiirisid why baa marka waa maxay targetka kale aad doonaysid markaad fiirisid kan kale aad sii doonaysid waxa marka uu ku dhow suuqa kani uu sameey inaad kan cabiratid halkan uu dhaqaaqa suuqa kasoo sameeyo barta tan oo aad tiraahdid ilaa iyo halkaas ka doonaya inuu ii tago lacagtada ii tagto markaa fiirisid ama cabirka kan halkan uu suuqa kasoo sameeyo ilaa uu halka ka yimaado intaa cabiratid aad kadibna tiraahdid ilaa iyo halkan intuu suuqa dhaqaaqo uu barta ii tagaan ka sugaya balse intaa waxaa ka horeysa in aad fahantid qaabka kan iyo sababta u tagayo muxuu saan u sameynayaa suuqa horey saan oo kale ma u sameeyay haa mudane iyo murwo mar walba oo aad samaysid wax la dhaho backtest waxaa arkaysaa suuqu waxaan hadda sugaysid in uu horey u sameeyey uuna ka sameeyey meelihii hore meel ka duwan halka markaad fiirisid trail line bay ahayd sida tan oo kale halkan oo kale trail line bay ahayd ujeedaan meesha tan halka ka samaysmatay ujeedaan barta tan bullish flag buu ahaa cabirka haddaad halkaa fiirisid halka ilaa intaa dhaqaaqay kadibna ilaa halkaa tegay maxaad cabiraysaa soo jaraysaa marka inta tanaa soo jaranaysaa haa marka exactly waa tabtii oo kale uu suuqu sameeyey balse uu ka sameeyey meel ka duwan meeshii aad ka sugaysay waxaana la dhahaa bullish flag baa la dhahaa oo halkaa suuqu ka sameeyey marka mar walba waa muhiim inaad og tahay suuqu waxa uu sameynayo sababtu u sameynayo iyo meesha uu ka sameynayo waxa kan in ay tahay sir iyo cilmi ku duugan tahay halkaa markuu sameeyo uu bartaa tegay suuqii kadibna soo dhacay okay markaad fiirisid marka halkan muxuu ka sameeyey lacagta tani barta tani aan ka sugana maysan imaan maxaa dhacay way soo dhacday lacagtii halkan ay timaaday maxaa marka lagaa doonayaa waa inaad wixii oo dhan aad markaas samaysaa wax la dhaho update waa inaad mar walba suuqii la socotaa okay muxuu sameeyey suuqii marka sida tan bay lacagtii samaysay maadaama ay sida tan samaysay waa maxay marka adigu hadafkaagu hadda ama waa maxay targetkaagu iyo waxaa sameynaysid backtestigu waa muhiim okay markaad fiirisid wuxuu suuqani hore usoo sameeyey waxa hadda sameynaya waa isku midkii halkan u yimaaday oo ujeedaa okay lacagtani waxa ay sameynayso baad halkan ka arkaysaa inay halka ka laabatay 1 2 markaad fiirisid okay ee bartata ka laabatay oo sababta uga laabatay waa maxay inay bartatan lacagtani ka laabato mudane iyo murwo waa muhiim inaad og tahay sababta lacagtani halka uga laabatay sababta halka uga laabatay lacagtani waxay samaysay wax la dhaho double bottom bay samaysay waa inaad mar walba backtestiga xataa aad meel dhow ka fiirin kartid ka arki kartid maxay samaysay lacagtani wax la dhaho double bottom bay samaysay okay oo xagee ka samaysay halkan ay ka samaysay mudane iyo murwo ujeedaa sooma halkan ay ka samaysay muhiim inaad fahantaan waxa kan uu suuqu sameynayo iyo sababta uu u sameynayo kadib maxaa ka sugaysaa lacagta tan inay halka soo taabato kadibna ay soo dhacdo si kale haddaa u fiirisid lacagtani correction bay ku jirtaa kadibna all the way down balse lacagta tan markaad fiirisid wuxuu suuqa hore u sameeyey oo kale bay sameynaysaa halkaa kasoo bilow ilaa halkan soo jaro structurekaaga in ay lacagtani bartatan halka kasoo laabato haddaa halka soo jabsatana ilaa halka ay imaanayso waxaana dhanna waa market structure iyo qaab dabiiciga suuqa hadday meeshaas sare gaartana halkaas ilaa halka ay imaanayso ee lacagtani barta soo taabanayso maxay usoo taabanaysaa halkan sababta waxay sameynaysaa wax cajiiba oo la dhaho double top oo suuqa hore u sameynay barta usoo taabatahay waana muhiim oo market structureka markaad fiirisid halka soo jar sande
suuqu hore u sameeyo kale ay samayso bartatan lagu celceliyo ay halkaa tagto kadibna ay soo dhacdo marka mudan iyo murwo mar walba oo backtest aad samaysid waxaad helaysaa siro badan oo kaa qarsoonaa waxaana kuu siinaya sirahaas oo dhan waxa weeye waa sirta suuqa oo aad fahantid backtestina aad samaysid waa mahadsantihiin mudanayaal iyo murwooyin waa cashar tayo leh aad wax badan ka fahantay la soco taxanaha kan casharaduna si u kala horeeya u dhegeyso waan hubaa in aad cilmi fara badan ka faa'iidaysid darwiisha kadib